الخوارزمي wuxuu ahaa xisaabyahan juqraafiyahan cirbixiye laga soo bilaabo waqtigii dawladda Cabbaasiyiinta wuxuuna qoray buugaag badan oo ku saabsan aljabra iyo geometriga wuxuuna ka qayb qaatay dib u noolayntii culuumta casriga dahabiga ahaa ee Islaamka. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقعيقو عبدالقني حانجي هالكننا وحانجي شو فضلا هدي أن نقو عصب تاهي نقو صوبير أو كنالك سبسكرايب نوصار هدي أن مقالك كيشينا لايك صار مهد سند مقعيسا ودميسترن ومحمد بن موسى الخوارزمي وحاكله ولغوني ناسا أبو عبد الله وحلصو بمبحي علوم بدن أودين عسينيسكا سيدا حسابت إيه فلقا. الخوارزمي وحوكله أو قعوين كجيستي هرمرينت علمي سينيسكا إساقو كدري lambarka eber tirooyinkii la isticmaali jiray gaarsiinta nidaamka tirsiga hindiga ee xagga reer galbeedka iyo sidoo kale isagoo keenay nidaamka tobanleyda ee tirsiga. inta waxa dheer al-Khwarizmi wuxuu ka qayb qaatay horumarinta dardargelinta alifida iyo turjumidii buugaagtii aqoontii ku qorneed afafka Laatiinka waxaana lagu tilmaamaa inuu yahay asaasihii aljabra. Muhammad bin Musa al-Khwarizmi wuxuu ku dhashay magaalada Khawarasan ee gobolka Khurasan oo hadda ku taala dalka Uzbekistan sanadku markuu ahaa 773 miilaadiga. markii dambe wuxuu u guuray isaga iyo qoyskiisaba agaarka magaalada Baghdad gaar ahaan tuulada Qatrbel halkaas oo beerihii aabihii ay ku yaaleen wuxuuna ka shaqayn jiray beeraha subaxii. dhalinyaronimadiisii al-Khwarizmi waxa uu bartay sugayna ku hadalka luqadda Carabiga si faseexa isagoo ay u raacday inuu ku hadli jiray luqadaha Turkiga iyo Fariska. wuxuu aad u jeclaa fardafuulka wuxuuna ka qayb qaatay tartamo dhankaasa iyadoo la eegayo aqlabadnidiisa iyo fariidnimadiisa. qaar badan oo dadka kamid ah ayaa kula taliyay inuu aado Baghdad halkaas oo uu ku barto culuumta kala duwan. waxa uu ku sugnaa Baghdad muddo 20 sano si uu u dhurto culuumta kala duwan ee xisaabaadka. kadib markii uu shahaadada xisaabta ka qaatay Baytul Hikma ama se guriga xigmadda halkaas oo ay ahayd barigaasi meesha ay ka burqato culuumta kala duwan ee sayniska, Harun al-Rashid ayaa u magacaabay xisaabyahanka isla goobtaasi iyadoo ay jirtay inuu yaqaanay luqadaha Turkiga iyo Farisiga. haddana waxa uu bartay luqadda Greega si uu u turjumo buugaagta ku qoran luqadaasi siiba gaar ahaan qaybta xisaabaadka qoseeya. waxa uuna kutubtaasi dhigi jiray Baytul Hikma. buugaagta uu turjumay waxa kamid ah al-Hisaab al-Hindi kaasoo sharaxaya aasaaska isugeynta iyo kala goynta. kadib dhimashadii Harun al-Rashid iyo la wareegidii awoodda wiilkiisa al-Ma'muun waxa uu al-Khwarizmi u magacaabay khasnajiga buugaagta ee maktabadda qasriga halkaas oo uu al-Khwarizmi ka bilaabay inuu akhriyo kutubta falaga ama cilmiga xidigiska qoseeya ee halkaasi taalay. waxa uuna markii dambe qoray kitaabkiisa Sind Hindi Saqiir ee cilmiga falaga ka hadlayay. markii dambe al-Khwarizmi waxa uu soo ururiyay dhammaan xeerarka iyo aragtiyada la xiriiray aljabra wuxuuna dhammaantood ku soo koobay aljabra wal muqaabila. sidoo kale waxa uu ahaa aabihii algoritmka taasoo ah maanta asaaska kombiyuutarka iyo shaqooyinka la xiriira. waxaad ka arki kartaa magaciisa algorithm waa al-Khwarizmi oo Laatiin ahaan loo akhriyay. al-Khwarizmi shaqadiisu kuma koobneen cilmiga xidigiska iyo xisaabta oo kaliya laakiin sidoo kale waxaa loogu daray inuu ahaa caalim dhinaca juqraafiga ahaa maadaama uu gacan weyn ka geystay cabirka wareegga iyo baaxadda adduunka. waxa kale uu gacan weyn ka geystay samaynta khariiradii ugu horeysay ee adduunka marka laga reebo inuu ahaa kii ugu horeeyay ee dunida u kala qaybiyay gobollo. wuxuuna qoray buug ciwaankiisu yahay Suuratul Ardi ama sawirka dhulka kaasoo uu ku sharxayo macnaha ereyga gobol, dabeecadihiisa, qaabkiisa iyo cimiladiisa. allaha u naxariistay caalimkii weynaa ee Islaamka Muhammad bin Musa al-Khwarizmi waxa uu dhintay sanadkii 847 miilaadiga. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. fadlan haddii aadan weli muuqaalka like saarin like noo saar mahadsanid.